waxaan joognaa 1 Abriil 2022 waa maalin Jimco ah waxaana maanta hadda nahan bahda Rajo Radio isku diyaarinayna inaan sameeyno barnaamij aan dadweynaha ku eegayno dareenkooda soo dhaweesta aan filanayno inay birtu ku beegan tahay hadaba magaalada Birmingham masiiba xaafada Smallhead baan la dhex qaadaynaa si aan dadweynaha u weydiino dareenkooda si ay u soo dhaweeyaan bisha barakeysan ee Ramadaanta waxa sugtino waa inaad nagala socotiin Radio Rajo Sheekh Faarax Deeq soo dhawaa waxaan ka socnaa Radio Rajo bal noogu waran dareenkaaga Ramadaanka biriyo ku beegan tahay insha Allah بسم الله الحمد لله والثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله إلى ما هذا سكله كدبنا لمنكين أن يرضى هو بشهر رمضان سؤال وين تهدكم مشغول سنة يجنا وأمه علينا أنت كدب إله سبحانه وتعالى ما هذا سكله وحنا كرو يدي سنة بشهر رمضان يعني رجينا إن يبره نقطة إن إله سبحانه وتعالى نجارسيه مركورا نقع عفمات قبل نجارسيه ملاباتك إن إله سبحانه وتعالى ونقدر يخوي كفائد يستبشاس وناجد عبادة خير كذا أولا وحنا إله وجمه العلنينا إنه نجارسيه ama maantay aan u rajaweyna inaan gaarno iyadoo ay jiraan dad walaalaheena oo sanadkii hore nala soomay oo nala tukaday salaadihii oo dhan inaysan jaanis u helin bishanadkan inay soo gaaraan bishan Ramadaan maxaa yeelay ajashoodii ayaa xilligaas ka hortimi laakiin anagu sidaan rajaynayno waxaan rajaynaynaa in Ilaahay subxaanahu wa ta'aala gaarsiiyay Ilaahay uga mahad celinayna dadka bini aadamku markii dayf ama marti weyn ay soo dhaweynayaan waxay ku soo dhaweeyaan si qurux badan jirkoodii iyo dharkooda iyo mandarkooda qurux badan nadiif ah sidaas oo kale qofka muslimka waxa laga doonayaa bisha Ramadaan inuu ku soo dhaweeyo qulub nadiif ah qofku inuu uga toobad keeno wixii dunuub iyo macaasi ah ee hore u sameeyay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isagoo markaas clean ah oo nadiif ah si bishii markaas uu u qaabilo cibaadadiina markaas halkaas uu gala jaan qaado muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan ugu hambaliyeynaynaa sidoo nabiga sallallahu alayhi wasallam ummadda ugu bishaareyn jiray uguna hambaleyn jiray imaashaha iyo soo gelitaanka bisha Ramadaan ayaa waxaan u hambaliyeynayaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan waxaan dhamaantood Ilaahay u weydiinayaa inuu waafajiyo ka faa'iideysiga bishaas waxaan kaloo muslimiinta ugu baaqayaa in la isgarab qabto oo dadka muslimiinta dhibaataysan ee khaasatan dadkeena Soomaaliyeed ee fuqarada ah ee aan haysan wixii ay ku afur lahaayeen kuwa gudaha joogay kuwa dibadda joogaba qaabkii loo garab istaagi lahaa waa idin salaamay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh calaykum asalaam waraxmatullahi Sheekh Faarax Deeq aad u mahadsantahay ilaahay ajra kaas insha Allah ما شاء الله بسم الله وما سنتين بشي بكرة رمضان والله وفرح سنحي لأنه حواي بشكلية أو محل يجي الدم بيجي لضعفه قفك مسلم كأنه إنه كفاية يستلو باهي هي يعني واحد أو ما أركنه حتى يعني مرة بهدي قفك مسلم أو حتى السنة حتى إنه كدر صار مرة تنوى بشيء تنوى بقدر أنت وحواي ومحل يجري وابو محل يجري بالرمضان وواجب معناها مفهمت الأركان الإسلامية كمتاي شهادتين بعد شهادتين وحكمت محل يجري صلاة أسقى كحيجة وقتين صون كحيجة حجكي يعني وحدا ما أركنه يعني قفك مكمل ما إلا وكنقل مركا أنا وحنا وباقي ولي بدل يرد يرب كرتي يعني إني آد ودلان معناها محل يجري كفائد يستان يعني قفك هدوس جيرنين معناها إنه كفائد يستو يولي بالشباب كل دم آدان وفرح سنة هي كنا ناس ما شاء الله أمير ويد السود وين أمرك هراء يدينك راديو رجاهان haddii aan ka warramo dareenkayga bisha Ramadaan ku aadan run ahaantii ma sha Allah waa dareen aad u farxad badan oo dadka muslimiinta Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku soo rogay oo ah in maartay qof kasto muslima ay dareen gaar u leedahay oo bisha Ramadaan uu maartay uu fuliyo inuu soomo inuu maartay cibaadaysto wax far badan dareen far badan uu fuliyo insha Allah maxaad ugu baaqaysaa bulshadeena Soomaaliyeed aad isleedahay wax aad gaarsiin fariin aad gaarsiinaysaa insha Allah waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed marka wadankeena laga hadlayo run ahaantii waxa ka jira abaara ka jira waxa ka jira dhibaatooyin fara badan marka insha Allah waxaan rajaynayaa dadka qurbaha jooga ama dadka meelaha kala jooga ama dadka la badan inay dadka abaaruhu haystaan dhibaatadu haysto ay bisha Ramadaan kala qayb qaataan dhibaatadaas oo ay dadka maartay saacideeyaan oo ay ka qayb qaataan insha Allah waajibaadka Ramadaanta ee la saaray ay si fiican u gutaan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Cumar Bare waa mid ka mid ganacsiyada ugu weyn magaalada Birmingham gaar ahaan xaafadda Smallhead. Cumar ku soo dhawaaw Radio Rajo iyo dareenkaaga ku aadan birito bisha barakeysan. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. runtii aad aan u soo dhaweynaa Rajo Radio waxaan isleeyahay insha Allah Ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka dhigo rajada aan raadinayna yimid Ilaahay afooday Abdullaahi raali ka noqdo waxaan aad u faraxsanahay magaalada Birmingham Rajo aad aan ugu soo dhaweynaa waxaan ka mid ahay community-yaasha oo u baahneen raadi Rajo la yiraahdo inaan helno oo anaga naga quseeyo sida ogtihiinba Soomaalida ku nool jaaliyada Birmingham ma qabaan TV gooni u ah ma qabaan raadi gooni u ah
waxaan leeyahay dadka sameeyey khayr allah ka siiyo communitykeena wuxuu tirayaa annaga wax noo tira insha allah aadan ku salaam walaalkiin kana waa mahadsantihiin بريتو ورمضان وجولهنا قارسيو درنكاي بالكبر wallahi alxamdulilah waxaan joognaa suuqa soomaalida dareenkayga aad u fiican yahay waxaan dareemaynaa dadka dhan waa socdaan adeegii wala doonayaan dadka dhan waa dareemaysaa inaad joogtid waddan islaan ah dareenkayga aad u sarreeya wallahi waxaan leeyahay ramadaan kariim ilaahi subxaana watacaala anigu wada gaarsiiyey sanadkan soonkan si fiican lana wada dhameeyo soonka xiga insha allah ilahay nala wada gaarsiiya rajana haddii laa yidhaaho waxaan aad u salaamaa saaxiibkay oonarka iskale raadiga aadaan u salaami doonaa xamsa iyo ciyaalkiisa dhammaan iyo maamada aadaan u salaami doonaa insha allah haddii laa yidhaaho aadaan u faraxsan ان شاء الله عمر بن ادم وصلت هاي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اويس ترافل اجنسي اويس كسو دواو راديو رجاء كبرن درنكاga بريتو رمضان ka وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. So excited ما شاء الله رمضان كي إلهي نجارسي يا محلة هذا وفرح سنة هاي حلنا خير كيسن إلهي نوفجي aada u maasanta awees wuxuu ahay mid ka mid ah ganacsadaha magaalada Birmingham Small Heat awees aada u maasanta walaal